bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada warbaahinta durdurka wararka waxaanu idiin soo gudbinaynaa cabdicasiis laftagareen oo ka degay magaalada adisababa ee xarunta wadanka Itoobiya xilli uu kulamo la leeyahay saraakiisha ugu sarreysa dowladda Itoobiya ma waxa uu kala hadlayaa sidii markaasi lagu geyn lahaa magaalada Baydhabo maadaama dowladda federaalka Soomaaliya ay ka hor istaagtay in uu ka dhoofo magaalada Muqdisho oo uu yimaado isagoona shaki ka qaba in magaalada Muqdisho lagu xanibo. haddaba waxaanu idiin soo gudbin doonaa qorshaha laftagareen haatan uu degayo xilli dowladda Xasan Sheekh cadaadiskii ugu xooganaa ay saareyso Cabdicasiis laftagareen sidoo kalena ay dooneyso in ay duulaan ku qaado magaalada Baydhabo. intaynu guda gelin marka koowaad soo dhow muuqaalkan la garee sina share garee si dad badan xogteena ay u gaarto. dowladda uu hogaamiyo Xasan Sheekh Maxamuud ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxa ay sii laabtay duulaanka ka dhanka ah dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya waxaana muuqato in filla Soomaaliya ay gashay dagaal siyaasadeed iyo mid markaasi military oo aan la ogeyn halka markaasi uu ku dambeyn doono. haddii Baydhabo xabad ka dhacdo ma laga baaraan degay waxa markaasi ka dambeey kara waa su'aalaha ilaa hadda isweydiinta mudan. Cabdicasiis laftagareen oo muddooyinkii u dambeeyay ku sugnaa magaalada barakeysan ee Maka oo halkaas uu u joogay cumro ayaa waxa uu si degdeg ah uga soo laabtay halkaasi isagoo saacadihii ugu dambeeyay gaaray magaalada Addis Ababa ee xarunta wadanka Itoobiya saan xogta ku heyno. laftagareen ayaa doonaya in uu markaasi u ambabaxo magaalada Baydhabo balse taasi uma suurtagelin sidii uu u rabay maadaama magaalada Muqdisho ay ahayd in uu sii maro oo transit ku noqdo. waxa uu markaasi ka cabsaday in filla Soomaaliya ay markaasi halka ku xanibto. filla Soomaaliya qudheeda qorshaha ay markaasi ka lahayd ayaa ahaa in markaasi ay ku xanibto Cabdicasiis laftagareen magaalada Muqdisho oo amar la duldhiga ah in uusan magaalada Baydhabo uusan u gudbi karin. laftagareen oo markaasi fahmay qorshaha filla Soomaaliya ayaa u muuqdo in uu ka wareeganayo magaalada Muqdisho isla markaana geed gaaban iyo geed dheerba u koray sidii uu ku tagi lahaa magaalada Baydhabo. waxaana laftagareen haatan uu ku sugan yahay xarunta Itoobiya ee Addis Ababa isaga oo markaasi wada kulamo iyo wada tashiyo ula yeelanayo saraakiisha ugu sarreyso ee wadanka Itoobiya isagoona ka codsaday in ay garab u siiyaan sidii ay ku geyn lahaayeen magaalada Baydhabo halkaasna uu ka galo dagaal siyaasadeedka iyo midka ciidan ee uu markaasi la galayo dowladda federaalka ee Soomaaliya. laftagareen oo muddooyinkii u dambeeyay ka maqnaa deegaanada Koonfur Galbeed ayaa waxa uu wajahayaa cadaadis xoogan oo kaga imaanaya dhinaca filla Soomaaliya xilli uu soo shacbaxay saacadihii ugu dambeeyay khilaafka weyn ee u dhaxeeya filla Soomaaliya iyo sidoo kale Cabdicasiis laftagareen. wararka ka imaanaya haatan magaalada Baydhabo ayaa markaasi waxa ay sheegayaan in markaasi khilaafka uu sii xoogeysanaya ee u dhaxeeya filla Soomaaliya iyo maamulka Koonfur Galbeed waxaana uu muujinayaa in dowladda federaalka ay gashay waddo dagaal iyo markaasi iska hor imaad siyaasadeed oo aan weli si buuxda markaasi loo sii qorsheen natiijada ka dhalan karta. ila siyaasadeed ayaa sheegaya in madaxweyne Xasan Sheekh uu riixayo cadaadis xoogan oo ka dhana madaxweyne laftagareen iyadoo qaar ka mid ah wasiirada dowladda lagu amray in ay galaan dagaal siyaasadeed iyo mid amni oo nooc kasta leh halka go'aanka ugu dambeeyo uu ka sugayo madaxtooyada. su-aasha isweydiinta mudan ayaa ah haddii Baydhabo uu ka qarxo dagaal hubeysan maxaa xigi doono. ilaa hadda ma muuqato qorshe siyaasadeed oo cad oo lagu wajahayo xaaladda ka dhalan karta iska hor imaad noocaasa sidoo kalena lama hayo qorshe qeexaya cidda maamul ahaan la wareegi doonta Koonfur Galbeed haddii xaaladdu faraha ka baxdo ama sida markaasi loo abaabuli doono doorasho sharciyad leh oo lagu bedelo maamulka haatan jira. waxaa kale oo meesha taagan dood kale oo muhiim ah haddii dowladda federaalka ay dooratay wadada dagaalka halka weli aan si rasmi ah loo cadayn qaabka doorasho ee markaasi la doonayo in dalka lagu hogaamiyo maxaa saldhig u ah dagaalkan maxaase loo gelayaa dagaal cusub iyadoo aan shacabka loo sheegin himilada siyaasadeed ee markaasi ka dambeysa. falanqeeyayaal badan ayaa aaminsan in khilaafkan uu ka gudbay muran siyaasadeed markaasi uun caadi ah una gudbay loolan halis gelin kara xasiloonida Baydhabo iyo guud ahaan Koonfur Galbeed. dagaal aan lahayn qorshe siyaasadeed oo cad waxa markaasi dhalin kara ayaa la leeyahay jahwareer amni burbur maamul iyo kala fogaansho hor leh oo u dhaxeeya dowladda dhexe iyo sidoo kale dowlad goboleedyada. haatan waxaa la isweydiinayaa in dowladda federaalka ay diyaar u tahay cawaaqibta ka dhalan karta dagaal markaasi bilowdo iyadoon weli lahayn sawir buuxa oo ku saabsan waxa ka dambeeya maalinta koowaad ee xabaddu ay dhacdo. dhinaca kale saraakiil markaasi waa saraakiisha ciidanka markaasi xoogga dalka ee kala duwan ee ku sugan magaalada Baydhabo ayaa saacadihii u dambeeyay ku kala qaybsamay amarkii ka soo baxay dowladda federaalka Soomaaliya ee ahaa in dhammaan saraakiisha markaasi ku sugan magaalada Baydhabo ee ciidanka xoogga dalka
si degdeg ah ay ku gaaraan magaalada Muqdisho isla markaana su'aalo laga weydiiyo weerarkii lagu qaaday guriga wasiir Xasan Elay maalmo ka hor isla markaana laga saaray ciidamadii halkaasi ku sugnaa halkaana ay ka dhasheen khasaare kala duwan oo dhimasho dhaawac iyo sidoo kale burbur hantiyadeedba markaasi uu ka dhashay saraakiisha oo amar la dul dhigay ah in magaalada Muqdisho ay si degdeg ah ku tagaan ayaa arrintaasi qaarna ogolaadeen qaarna ay si cad markaasi uga biyadiideen waxaana la rumaysan yahay in kuwa amarkaasi diiday ay si toos ah ula safteen Cabdicasiis Laftagareen saacadaha markaasi in soo aadan ayaa la filayaa in dowladda federaalka Soomaaliya ay markaasi xilalka ay ka qaado saraakiisha amarka dowladda diiday isla markaana kuwa kale ay ku bedesho taasoo sii horin karta colaadda iyo sidoo kale xasilooni darrada kasoo cusboonaatay deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya ee u dhaxeysa Villa Soomaaliya oo markaasi bushgaraynayso kooxo markaasi mucaarada oo la baxay isbedel doonka koonfur galbeed ama badbaadada koonfur galbeed iyo sidoo kale maamulka koonfur galbeed ee uu hogaamiyo Cabdicasiis Laftagareen xaaladda guud ee deegaanada koonfur galbeed ayaa qasan saacadihii lasoo dhaafay xilli deegaano iyo degmooyin ka tirsan koonfur galbeed sida degmooyinka Qansax Dheere iyo Buuraha Kaba ay ka socdaan dhaqdhaqaaq xooggan oo markaasi looga soo horjeedo maamulka koonfur galbeed Soomaaliya sidoo kale maamulka koonfur galbeed waxa uu wada abaabulkii ugu xoogganaa xilli ciidamo cusub markaasi la diyaariyay sidoo kalena magaalada Baydhabo daafaheeda waxaa markaasi lagu arkayay ciidamada oo qodanaya godad iyo sidoo kale dhufaysyo ay markaasi kaga gaashaamanayaan weerarka la filayo in dowladda federaalka Soomaaliya ay ku qaado magaalada Baydhabo saacadaha in soo aadan iyo maalmaha xiga ayaa la filayaa in Villa Soomaaliya ay diyaarado ku daabusho markaasi ciidamo kala duwan kuwaas oo la geyn doono deegaano ka tirsan maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ogana sii gudbi doono magaalada Baydhabo tallaabadan ayaa u muuqato isla tallaabadii dowladda federaalka Soomaaliya ay u qaaday dhinaca Jubbaland sanad ka hor taasoo markaasi dhalisay weerar markaasi geystay khasaaro dhimasho iyo dhaawac badan sababay inkastoo dagaalkaasi uu ugu dambeyn ku adkaaday Axmed Madoobe oo ciidamadii dowladda federaalka Soomaaliya ay geysay deegaanka Raaskambooni laga soo adkaaday tallaabadii tulamida ayaa Villa Soomaaliya haatan ay u muuqataa in markaasi ay ku wajahayso koonfur galbeed Soomaaliya walow aan la saadaalin karin sida ay wax noqon doonaan marka loo eego Cabdicasiis Laftagareen oo dhankiisa abaabul markaasi xoogan ku jiro xilli uu markaasi garab weydiistay dowladda Itoobiya sidoo kalena dowladda Kenya ayaa la filayaa in uu garab weydiisto maadaama safarkiisa haatan Addis Ababa uu qorsheenayo in uu uga sii gudbo magaalada Nairobi halkaasina uu kulamo kula qaato saraakiisha kala duwan ee dowladda Kenya Cabdicasiis Laftagareen haatan waxa uu ku biiri doonaa golaha mustaqbalka Soomaaliya ma cadda ilaa ay hadda tallaabada xigta ee markaasi uu qaadi karo haddaad nala soo gaartay dhamaadka muuqaalkan waxaan kaa codsanaynaa inaad nagu soo biirto oo muuqaalkana like gareyso sidoo kalena aad sii share gareyso subscribe-ka naga hilmaamin si aad u heshid wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya